dadkani waa kuwa danyar ah waxayna ka cabanayaan dhulboob xooggan oo lagu hayo isla mar ahaantaasna dhulkaasi uu yahay kuwa ay iyagu si gaar ah u leeyihiin iyagoo dadkani baaq u diray barasaabka gobolka oo laamaha amniga gobolka iyo degmada iyo madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo waxayna sheegeen inay uga baahan yihiin xukuumadda inay u soo dirto gurmad heer qaran ah oo iyagu ku salaysan waa sidee hadalka u dhigeen xaqiiq raadin iyaga iyo arinta ka dhex taagan taliyaha ciidamada asluubta ee gobolada u daliya Salal Gaashaanle Saciid Axmed Caynaan dadkan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ah taarka dawladda ummadda waa loogu adeegay wax laguma dhaco mudana madaxweyne arintaasi arin isqaba weyday bay noqotay arrin aan ka yaabna bay noqotay hadda barkaya waa jajaban yihiin waa lagu laayay waa lagu dhiig cabay waa gudoomiyaha waxaan la hadlayaa gobolka barasaabka Mustafa Shiine waxaan la hadlayaa taliyaha qaybta Colhaye waxaan la hadlayaa baaqu ku wajahay taliyaha saldhiga Mr. Cideere war arinta fiira gaar ah loo sheegay madaxdii mas'uuliyiinta gobolka Tiine iyo fariin cad oo isku lifaaqan u dirayna madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo baaqaasi oo ku wajahan dhibaato ba'an iyo dulmi isdaba socda oo ka taagan halkan aanu taaganahay oo ah magaalada Boorama gaar ahaan duleedka kantaroolka magaalada beertaasi waxa weeyaan taliyaha ciidanka jeelka Boorama ayaa awood ciidan iyo dirayskiisa ku qaaday oo ku iibsaday nagaga dhacay annagoo dad masaakiina oo ducafa arki kartaan dad faarij ku dhacay intii dacwadaasi socotay oo ducafa oo danyara waxa weeyaan taliyuhu warqada xeer ilaalinta ciidanka qaranka ayaanu dacwad u gudbinay 2012 waa loo yeeray beerta dadka ma dhacday baa leeyahay wax ma ka iibsatay ma yabuuri taliyaha ciidanku uu beeniyay arrinka baadhis ay direen ciidanka asluubtu janankii hore mastaxiirane kadib waxa dhacday baadhistii waqti dheer ayay qaadatay war waxaanu keenay annagu soo ogaanay oo aanu soo gabagabaynay warqada inuu beertayada ku iibiyay markii uu beeniyay taaro uu ku beeniyay inuu taliyaha ciidanku qaranku saxiixiisi ka yahay taliyaha ciidanka baan u jeedaa asluubta jamhuuriyadda Somaliland Saciid Xuseen Caynaan gaar ahaan ka gobolka u qaabilsan dacwadeeda meel walba waanu gelinay saxiixiisi waa ka taliyaha ciidanka asluubta ee magaalada Boorama Saciid Xuseen Caynaan waxa kale ee jirta dacwadda wuxuu nagula dheelayaa maxkamadda beertu waa dhaxal waxa weeyaan taasina wuxuu ku samaystay wasaaradda beeraha inuu isagu beerta iskii u leeyahay oo ardiyadii iyo shahaadadii beeraha u samaystay waa arki kartaan dulmiga iyo cadaalad darradu halkay marayso marka waxa taagan imika beertii oo xayiran in la seesaayo nalagu dul yibinayo nalagu dul rahmaayo nalagu dul dhisaayo intayadaba marka sharcigii ma ixtiraamayo tali waxbuu ku biyeynaya been abuur buu sameynaya in ilaahay baanu ka baryeynaa marka aad arrinka iyaga hoos u eegto maalinka yawmal qiyaamaha ee qof waliba leeyahay nafsi rasuulkuna uu leeyahay ummati in aad noqoto inta rasuulku u hareeyo ee digreeto nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam loogu hareeyo ee digreeto nabi Muhammad cadaab qabri kaga badbaado ayaanu jecelahay kuugu ducaynaynaa madaxweyne waajibkaaga inaad gudato aanad isir nugu eegin aanad gobol nugu eegin aanad gacan kale noo dhiibin guddi xaqiiqo raadin ah oo xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha aad noo soo dirto illa noo soo gurmado oo dadweynuhuna arko oo dawladuna aragto ayaan doonaynaa waxa weeye dad itaal daran oo aad iyo aad u itaal daran ayaa meesha jiifa wixii hore waa la naga qaateen hadhaysanay waa soo iibinay roobkii yaraashay dhaweyd baan haddana u soo iibinay waan dul dhignay waan baqaynaa cadceedaan fadhinaa waan ka dareerinaa maxaan ku dhahay waan ka qaadnaa haddana waan dul dhignaa walaalahayana way wada xidhan yihiin hadiyo jeer waa la dilaa habeenkii baa lagu soo duulaa way wada jajaban yihiin way wada dhaqran yihiin dhibaatahaasaan haysataa Jaamac Xuseen Jaamac Dode Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland